magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maanta ahayd mid si weyn looga dareemay dabaaldegga munaasabadda Ciidul Fitriga iyadoo amnigana ay si weyn u adkeeyeen ciidamada booliiska federaalka Soomaaliya ee ka howlgala Gaalkacyo iyo kuwa xasilinta booliiska gobolka Mudug ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug. kumanaan dadweyne ayaa saaka isugu soo baxay wadooyinka iyo masaajidda waaweyn ee ku yaala magaalada Gaalkacyo kuwaas oo muujinaya dareen farxadeed oo ku aadan u dabaaldegga munaasabadda Ciidul Fitriga. gudoomiyaha golaha sare ee culimada Galmudug Sheekh Muxyidiin Yuusuf Barre oo khudbad ka jeediyay masjidka lagu tukanayo salaada Ciida ayaa ka hadlay dhibaatada maandooriyuhu ku haya magaalada Gaalkacyo iyo waxa looga baahan yahay ciidamada ammaanka. waxa weeye magaalada munkarka ka jira khamradu ay asalka u tahay oo aan ognahay guryahanagii xaafadaheennii masaajidda qaybo ka mid ah xataa meelo khamrada lagu farsameeyo oo nooc walba iyadoo lagu sameeyo ayaa yaala masaajidda qaybo ka mid ah. culimmadu markay salaada galaan bay hareeraha khamrada kala fariistaan. maamulka in badan baan kala xiriirnay u sheegnay waana qabanaynaana way leeyihiin. waa dhici kadhaa inay awoodooda ka badan tahayo xoogaa jufooyinka qaar waxaa jira aan dadkooda lala hadlin moogta xoogaa in waxyaalo kala jiraan baan u fahmay. 3 taliye oo kala sarreeya waan kala hadlaanay 3 taliye oo kala sarreeya ilaa ay haddana wax waa laga qaban lahayn. waa meel la yaqaano caan ah oo maxaan ku raayay digsiyada lagu karin jiraa muuqda xataa digsiyada lagu kariyo midda kariska midda aan kariska ahayn ee dhalooyinka sajalka ah ee Itoobiyaanka ee dadkan loogu talagalay in aakhiriya adduun lagu seejiyo baa dhooban. waa ugu celcelinaynaa insha Allah tabaaraka wa tacaala waa ugu celcelinaynaa maamulka heerarka kala duwan oo amnigu waliba u xoog badan yahay khamrada magaalada hafisay in wax laga qabto. imise qof baa isku dishay soonqaad gudihiisa imise wiil oo loo baror diiqaya khamro isku dilay. dadku saas ku dhamaanaya haddaan wax laga qaban. maxaa dadka madax loogu yeelay sababta dadka maxaa madax loogu yeelay maxaa amniga loo sameeyay waxaasoo kale ummadda inay ka qabtaan baa loogu talagalay. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. sidoo kale qaar ka mid ah shacabka magaalada Gaalkacyo oo aan la dhex qaaday makrofoonka warbaahinta qaranka ayaa iyaguna muujiyay farxadooda ku aadan dabaashaadka munaasabadda Ciidul Fitriga iyagoona hambalyo u diray guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان شعبك الصوماليات ميل والبقى يشوغان وحن لا يهي عيد ونحسن iyo umada islaamka meel walba ay ku nool yihiin waxaan ciid mubarak kullu aam wa antum bikhair. si qaasa waxaan si u salaamaya ugu mahadcelinaya dhammaan shacabka reer Gaalkacyood asxaabteeda friendedeeda waalidiinteeda dhammaan waxaan la ciid wanaagsan kullu aam wa antum bikhair. soo dhawaad sanadkan sanadkiisa caafimaad baraaro bashbash nimco Allah inagu gaarsiyo. أولاً السلام يا رمان مسلمين تا مالك سدون دا عايش عالم كشوغان عنكم سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية حلا هي عيد وناكسن عيد العافية عيد الفطر ما أنت إلهي سبحانه وتعالى وحنو قلضي أنا صدقك بريسوس صوني ما أنت أنا أتاجنا هاي ما أنت عيدة waxaan aad oo ish ugu mahad celinayaa TV-ga telefishinka qaranka Soomaaliya. ilaahay baa mahad iskale. maanta waxaan joognaa barxadda ciida maanta oo taariikhdu tahay 22kii bisha afraad. ilaahay baa mahad iskale. waa maalin sabdiya ciid wanaagsan baa leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan iyo dhammaan dadka maanta ciidahaya iyo inta shalay ciidaba ciid wanaagsan baan leeyahay. waa Axmed Macalin Cismaan ku nool magaalada Gaalkacyo. waxaan farxadda ciida la qaybsanayaa kumanaanka qof oo maanta ku ciidaysa magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan dunida islaamka. waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu aam wa antum bikhair. magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa iyadoo maalintii labaad laga dareemaya u dabaaldegga munaasabadda Ciidul Fitriga. Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.